gabadha waxay weydiinaysaa sheekh gabadha muslimadda ah gudniinka sharciyadu maxay ka qabataa gabdhaha la gudo gudniinka waa noocyo gudniinka midka fircooniga la yiraahdo dhaqankii Soomaalida kamid ahaa hooyooyinka iyo hooyooyinka sameyn jireen midka noocaasi waa xaraan qatci ah gudniinka fircooniga ah shariicaduna ma qabto waana dulmi iyo xadgudub waay maxaa yeelay xubnaha bini aadamka meeluusan ilaahay ugu talagelin in la gooyo ma aha maslaxa ku jirta xubnahan ilaahay abuuray say u kala maslaxa badan yihiinba xubin faasid ah oo khariban oo in la gooyo u baahan jidhka laguma abuurin xubnahani maslaxay ku wada jiraan maslaxay leeyihiin meelaha qaarkood oo nadaafad darro in loo jaro loogu talagalay way jiraan cidiyaha oo kale timaha meelaha muxuu ahay laabatooyinka ka soo baxa in la jaro علشان kuwa nadaafad baa ku jira ama xubnaha intooda kale asalahaan waa in sidii ilaahay u abuuray loo daayo manfaacadii loogu talagalayna muxuu ahay la ilaaliyo waay gudniinka fircooniga marka waa xaraam mana banaana nooca labaad waa gudniinka sharciga ah gudniinka sharcigu wax culus ma ah waa xubinka wax aad u yar in laga dhiijiyo oo xataa aan aad loo dareemaynin ka noocaas oo kale ah oo gudniinka sunniga ah culimadu way isku khilaafsan yihiin qaar waxay qabaan waa waajib dumarka marka la yiraahdo qaarna waxay qabaan ma aha waa sunno waajib ma aha qaarna waxay qabaan ma uu iska banaan yahay sunnana ma aha waajib ma waa wax iska banaan oo hadii la iska daayana dhib lahayn saddexda ra'yiba culimadeenu way qabaan fuqahadii hore qabay waxa ila fiican oo ila rajaxan gudniinka dumarka ee sunniga ah in uusan waajib ahayn ee uu sunnaya haddii la sameeyana way fiican tahay haddii la iska daayana dhib ma laha ra'yiga dhexdhexaadka ee labada ra'yi u dhaxeeya ka isaga way ama gudniinka fircooniga isaga qat'an waa xaraan mana banaana wallahu a'lam